السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya waan islaamay meel kasta adduunka joogtaan khayr iyo abshir iyo bashbash baan ii rajaynaya maasha allah caawa aad baan u faraxsanahay maasha allah shay laagta sabrayka oo dhankiina khayr iyo abshir iyo bashbash ayaan ii rajaynaya Soomaali weyne halka waxaan rabaa inaan ka dhageysano Murti Hage uu yiri siikay baan u hambalyeynaya arooskiisi oo siikay ma aroosay dad badan baa arkay soo saaray hambaliyo asaya gabar kale isku dhagan wax badan YouTube marka waxaan dhahay bal hubsiina hal baa la siistay hor dhicine dad badan oo soo saara arkay siikay maasha Allah de hambaliyo haday dhab tahay haday brank ahaan hambaliyo siikay maasha Allah kuwa isku waara isku baraara ubad khayr qaba kala hela Allah niga dhigo wiil iyo caano gabar iyo caano Allah niga dhigo maasha Allah waa haday run tahay aan isla dhageysano Murti Hage the next 24 hours waxaan abaadkiisa maqli doontaan hooyadii guursaday dhoof darteed wuxuu halkan ma aqaan wuxuu soo jawaabay Murti Hage waxaa abaadkiisa maqli doontaan hooyadii guursaday 24 hours waxaan abaadkiisa maqli doontaan hooyadii guursaday dhoof dartiis kabacdi waxaan u maleeyaa waa kaftan hambaliyo u dirayaa aan soo dhageyso halka waxaa iga muuqda inuu yacni report uu samaynayo kadibna uu confirm gareeyey magaciisana uu yahay oo saddexan Cumar Maxamed Maxamuud qofka marka waxa waaye waa CK waaye barnaamijka kor waxa jiray aan uga hadlayay oo ani asaga aan mataqaanaa si caadi barnaamij oo reaction ka bixinay marka reaction-ku ilaa ka yara xumaado ka yara kululaaday hadda ka horna taas kala ayuu mataqaanaa barnaamijka reaction uga bixiyay oo uga kululaaday oo ka soo calaal marka oo hambalyeynaya horta xilli adag xilli fiican ku jira oo xilli farxadeed ku jira waxaan leeyahay aad iyo dimasho horta waa hambalyeynaya hambalyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydi ka dhigo reer barwaaqooba baraara noloshana ku barakooba Allah idin ka dhigo markaas ay leeyahay waxa weeye qof marka farxad ku jiro horta in loo hambalyeeyo waa muhiim hadda ka horna waa hambalyeeyay marka waxa taas 600 oo kun oo subscribe ku gaaray mar walbana uu hambalyeeyaa waxa weeye qof bariga bulshada ku jira waaye oo aan ah oo wax ka khaldan kara wax laga sheegi karo wax la mataqaanaa lagu soo qaadan karo reaction laga bixin karo wax walba mataqaanaa lagu sameyn karo marka maadaama aniga hadda maanta ay raahdo sida ay laga sheegi karaa ama reaction laga bixin karaa malayn ma inay soconayso reaction markii la yiraahdo qofku yani uu bixin karaa uu ka falcelin karaa wuxuu sameeyo uu arko barnaamijka video hore waxa jira uga falcelinayay isaga iyo Ismaaciil Xaaji ay mar isku dhaceen baan horta reaction ka baxshay reaction kaasna wax kala ma ahayn waxaan labadooda ku tusay meelaha ka khaldan yihiin iyo mataqaanaa sida xarfi alcumuum ku dheeraan maayo videogaas uu ku jira videogaas hore u ahaa marka waqtigan hadda qoraalkan soo gareeyay qoraalkan marka waxa waaye 18 January inay tahay miya baan mareynaya ama 17 January meelahaas wuxuu ku bootaynayaa ama uu ku dhaaranayaa in uu yaani hawada ka saari doono janalka Murti Hage ee aad hadda iga wada daawanaysaan waliba asaga oo iska dhigaya nin mataqaanaa YouTube-ka asoo gacanta ku haya horta marka koowaad ka cudaaranaya in uu mataqaanaa si ficiltan ah oo noocaas u caroodo oo kuleel ku gaaro ninka ragga ah waxa weeye inuu saas dhan u kululaado oo asagoo barnaamijka ku jira saas u gubto warta waa mataqaanaa waa yara daciifin malayn maayo qofkiga haddii social CK waxayaan aan tagay weeye maasha Allah qofka meesha joogo heerka markuu qofka gaaro waxaa la dhahaa maasha Allah ilaah uu siyaadi ayaa la dhahaa
ayaa waa loo duceeyaa meeshuu gaaray ilaah u barakee maasha allah laakiin soomaalida wax moodaxaa sida qofka markuu heer gaaro waa la daba dhigtaa siduu u gaaray youtube-ka maanta waxaan maran dadka youtube-leeda kuwa ugu caansan wax ka caansan amuu heerku gaaray amuu soomaali kale gaarin saan u arko maasha allah hadduu guursadayna ilaahay ha u barakeeyo ubad kheyr qabo baariya allaha siiyo waa loo duceeya maasha allah halkaasaan kaaga duceynaynaa maasha allah hadday gurun tahay kolayba been maaha baan u malayn dee bareenkigaaga iska badane marka ilaahay kheyr ha kaaga dhigo kuwa isku waara isku baraara allaha kaaga dhigo dadkan aan leedahay youtube-yadan ka xiriyaa dee haddaa caan gaadhay meel fiican ilaahay ku gaarsiiyey waxaa la rabaa dadka kaa hooseeyo inaad gacanta qabatid inkastoo aad tiraaday dad badan baan gacanta qabtay dad badan baan toosiyey dad badan baan hagay markii dambena way igu xumeeyeen sida ismaaciil sidaa sheegaysay adig ismaaciilna wayna adeerka sii kay mid baan ku leeyahay horta ismaaciil sheekadiis hadda maba ku jirnay hambalyadan baan soo galay ismaaciil sheekadiis hadda wayba dhamaatay in hadda kusoo celiyo waaba qalab tagtay marka ragga meel horta ismaaciil meel xun baa ka qabatay anagoo dhan baa ka xanaaqnay adduunka soomaalida oo dhan baa ka xanaaqday horta taa tagtay laakiin mar dambe yay dhicin inaa qof meesha ka qabatid sidaasi u gashay ismaaciil qof kale ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo waa halis qofku shaqadu hadda bilaawo indhaha ku kala furay waxoogaa fiicnaaday adaa sidai aa sheegaysayba kor adaa keenay markii dambena geeb israaqada ilaahay baa haya laakiin aad baan uga naxanay mar labaad ha u noqon isha bidaadanka halis weeye waa khatar wax kastoo lagugu sameeyo laq baan ku dhihi lahaa anigu maxay ahayd ha ku dayan dadka yaryar soo kacay adiga haddaaba caan noqotay wax kastoo lagugu sameeyo horta qofka hadduu caan gaaro meel fiican noqdo caan noqdo xaasidiintu iska badan tahay qaara waxba ku sameynin waxba ay yeelin committee ay ku soo hadda maanta waxaan dhageysanayay waxaan daawanayay gabar naajo makeup Nairobi joogto Instagram-ka marka ka sheekeysanayseen ee laheyd maxaa sida lagu caayam cadowgaagu muxuu u batay marka qofka hadduu caan gaaro khasab cadowgaagu u badan saas wey laakiin dheg ha u dhigin go ahead baan ku leenahay cadowga allaha kaa qabto halkaa ka sii wad dheg jalq ha u dhigin waxaa caawin qofka caawin karta caawi kuwii ku baahanoo yaryar adi caawi dadka caawi qofka hadduu ilaahay ku xirnaado oo dadka kaa hooseeya caawisid dhibaatoba ma arkisid inaa hore u socotid mooyaane dhibaatoba ma arkisid cadowga oo dhan ilaahay baa kaa qabanaya haddaa ilaahay ku xirnaatid dadka kaalmaysid kuwii janarkooda raba inaa kor u qaadid dhibba ma arkisid dadkao dhan way ku jeclaanayaan wixii cadowna allah kaa qabanaya soomaaliya shee lagta subscribe-ka ciisaara sida iyo kulanta dambe oo xiiso badan leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu